madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha iyo taliyayaasha ciidamada uu kala hadlayay xaaladda guud ee amniga dalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhageystay taliska ciidanka xoogga dalka warbixin ku saabsan wajiga koowaad ee howlgallada xoreynta. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in hirgelinta qorshaha muddo dhow ay horseedayso guulaha ay sugayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan ciribtirka al-shabaab. ayaa lagu jiray qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya. wuxuu bogaadiyay nafurnimada ciidamada Soomaaliyeed ee u istaagay xoreynta deegaanada ay al-shabaabku ay kaga harsiin dalka. madaxweynaha ayaa xusay intuu socday kulankaas in abaabulka xoogga dadweynaha ay wax weyn ay ka tir doonto halganka. kulanka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibraahim Sheekh Muxidiin iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. howlgalkan waxaa lagu dul istaagay wada tashiyo ku saabsan si degdeg kooxda al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan gobolada dhexe ee dalka. mas-uuliyiinta ayaa shirkaas ku kala qaatay waajibaad ku saabsan dagaalka al-shabaab oo hadda muhiimada koowaad ay siinayso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaana ka socda gobolada dalka, waxaana la filayaa inuu bilaawdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab. waxaa laga saaray tan iyo markuu bilaawday dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo meelo badan oo sanadihii ugu dambeeyay kooxda ay ku sugneed. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo alla ileh haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha kudhi.